السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada markale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu tala galnay maanta oo ah maalinimo isniina taariikhduna ay tahay 15 bisha Janaayo sanadka 2024 barnaamijkan waa kii labaad iyadoo barnaamijkan kii ka horeeyay aad ka daawan kartaan Facebook-geena iyo YouTube-keena labadaba haddaba barnaamijkan macluumaadka aan idinkuga hayo waa barnaamijkii habeennimo waa barnaamijka aynu ku soo ururino dhammaan wararka ugu waaweyn ee dhacay saacadihii la soo dhaafay dhowr qodob oo muhiim ah ayaan barnaamijka idinkugu hayaa xuutiyiinta oo la sheegay inay si la yaab leh u sireen Mareykanka iyo Ingiriiska kadib markii la sheegay duqeymihii ugu dambeeyay ee Mareykanka iyo Ingiriiska inay duqeeyeen meel cidla ah oo aan waxba ka jirin haddaba warbixino laga qoray arrintaas iyo sida ay wax u jiraan iyo khiyaanada ay xuutigu ku dhaqaaqeen ayaan idin hayaa waxa soo kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyadoo indhahooda shanta yihiin Ingiriis Mareykan iyo xulufadii la socotay ayaa markab xamuul ah oo wada konteenaro oo Mareykanku leeyahay una socday Israa'iil ayaa maanta lagu weeraray badda cas iyadoo gantaal ay la heleen xuutiyiinta guutooyin ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa isaga baxay magaalada Gaza kadib markii ay la kulmeen cadaadis xoog leh oo kaga yimid dhinaca Kataibul Qassam haddaba ma sidaas ay uga dhamaan doonaan Gaza mise way soo rogaal celin doonaan haddaba qodobadaas iyo kuwa kale ayaan jecelahay barnaamijka inaan idinkula wadaago Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. kula wanaagsan khiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena habeenka ama barnaamijkeennii habeennimo annagoo idinkugu soo gudbin doona qodobo muhiim ah qodobka ugu horeeya ayaan galaynaa iyadoo xuutiga uu dagaal ka wado halka Lubnaanna Xisbullah ay madaafiic ka tuurayaan dagaalka Gazana xaalkiisu aan la socono ayaa kooxda muqaawamada islaamiga ah ee waddanka Ciraaq iyaguna waxa ay wadaan saacadihii la soo dhaafay duqeymo kale oo ay ka fuliyeen saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay gudaha Suuriya iyagoo maalin ka horna duqeeyay saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay Ciraaq haddaba wararkii ugu dambeeyay arintan ee la qoro waxa la leeyahay wargeyska liiraado Asharqul Awsad ayaa sheegay kooxaha Ciraaqiyiinta ee hubaysan inay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigga liiraado Koniko ee Mareykanka uu ku leeyahay gudaha Suuriya waxay sheegeen saldhiggaas inay ku weerareen diyaarado drone iyo madaafiic ayna sheegeen in ay halkaa ka jirto khasaaro ay geysteen inkastoo Mareykanku aanu soo saarin wax tafaasiil oo ku saabsan warkan waaye marka iyagu waa iska awlaadii Iiraan mar hore idin sheegay xuutiga u weyn qoladan kale waa yaalkii kala waa marka iyagu inta ay kuwan dagaalamayaan wax ridayaan iyaguna waxbay saas ku ridayaan marka wali wax tafaasiil oo Mareykanka ka soo baxay male maalmahan dhan nagtay ku hayaan waayahay qodobkaas intaas kaga gudbaynaa sheekada cajiibka ah caawa way noo soo socotaa barnaamijka qaybta dambe waa arinta ku saabsan sida la yaab kale ee loo siray ciidanka Mareykanka iyo Ingiriiska duqeymihii ugu dambeeyay ee xuutiga warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin xuutigu waa imtixaan haddaba waa arki doonaa meesha la iska arkay iyo kaartada xuutiga ay u dageen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska laakiin marka waxaynu u gudbaynaa Gaza waxa ka sii socda ciidankii Israa'iil xalay Daniel Hagari wuxuuna lahaa meelaha aan joogno kama baxayno laakiin meel la joogi kara ma tahay meeshaas waxa ziyaara aad meesha u tagaysaan waa aragteen nagta la isku hayo meeshaas yaa joogi kara haddaba waxa leeyahay guutooyin afara ayaa ka baxay culays ka yimid darteed dagaalka halka ka dhacaya meel ay u dhaqaaqaan waayeen sida amar loo siinayo gala loo laha nagta loogu hayay war gala nagta loogu hayay ciidankii wax curyaamay wax dhaawacmay iyo wax moral ahaan wareeray ay noqdeen
waa tahay marka sheekooyinkii ugu dambeeyey marka weliba saacadihii ugu dambeeyey ayaa wararkan isa soo tarayaan telefishinka Al-Jazeera ayaa wuxuu leeyahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay soo saareen guuto dhammaystiran magaalada Gaza oo asal ahaan 4 qaybood ka koobneed haddaba guutadan marka maxay tahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen maanta oo Isniina inay soo saareen guutada nambarkeedu yahay 36 iyadoo ka dagaalamaysay marinka Gaza waxayna sheegeen inay ka mid tahay guutooyinka 4 qaybood ka kooban oo iyagu markaa dagaalka ku jiray marinka Gaza ka soconaya tan iyo 100kii maalmood ee la soo dhaafay idaacadda ciidanka Israa'iil ayaa goor dhaweyd waxay sheegtay in ay markaa Gaza sii joogi doonaan 3 qaybood oo kale oo guutooyina kuwaasoo nambaradoodu ay yihiin 99 162 iyo 98 haddaba waqti sii horeysay ayay leedahay jariiradu ayay Israa'iil waxa ay soo saartay qaar ka mid ah guutooyinkeedii khatarta ahaa oo ay ka mid tahay guutada la yiraahdo Golani iyo guutada la yiraahdo 36 188 iyo guutada la yiraahdo silaax handasa ama qaybta injineeriyada waa la soo qulqulayaa meesha ninkii Abu Ubayda xalay kun aan ka takhalusnay lahaa yaa u joogi kara nimankan askarta amar sida loo siinayo wargala soo noqonina loo lahaa nagta loogu hay hadda waa u jeedaa marba qayba soo baxaysa marka Faiza Duwayri ayaa la weydiiyay waxa la yiri guutooyinka soo baxa ka war iyadoo dagaal socdo guuto soo baxaysa ciidankuna ciidan markii hore awood lahaa oo ciidanka kale inuu ka awood badan yahay soo haystay oo soo baxa hadda aragtaan uu yiri ciidankaas waa khasaaray u dhahay inta ka dhimatay inta dhaawacantay waa isla egyihiin u dhahay macnaha ciidanka waa la baabiiyay haddii ciidankaas uu gacan sarayn lahaayeen kooxda ay ceersanayaan way ku faani lahaayeen laba soo qabanay godkaanaan galnay kanaan galnay dhihilayn laakiin dib u soo bixid haday bilaabat iyagoo taangiyo wata diyaarado wata wax walba wata marka wuxuu leeyahay khasaaraha waxa soo kululeeyay ayaa ka daran u leeyahay waayahay marka qodobadii xuutiga ayaan u tagaynaa markaan xuutiga arinkiisu caadi ma ah barnaamijkan kii ka horeeyay waxa idin kugu sheegay inuu gantaal ku weeraray markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay saaka aroortii sida Mareykanku ay sheegeen gantaal cruise la yiraahdo oo midka lagu la dagaalamo maraakiibta ah ayuu ku soo weeraray waxa la yiri marka waa badbaado markabkiyo diyaarad Mareykanku leeyahay ka hor tagtay gantaalkii gantaal kale ku dhufatay xaalku halkaas uu noo joogay hadda waraa soo dhacay la leeyahay markab Mareykanku leeyahay oo kuwa konteenarada qaada xamuulka ah ayaa badda cas lagu helay marka Ingiriiska way sheegeen markabka in la weeraray Mareykanka laftirkiisa wuu sheegay xuutiyiintuna way sheegeen xuutiyiintu waxay yiraahdeen markabku wuxuu u socday Israa'iil waxaan niri ha soo marin meeshaan ha isku soo marin Ameerikaankii uu la hadlay wuxuu soo mari kartaa meeshaan anaga joognaa adika ma jooga haye soo soco meel cadan 95 mayl u jirto u dhahay Mareykanka ayaa gantaalka lagu dhufto dhahay nag lagu siiyay iyadoo indhahooda ay fiirinayaan galabta waa laga qeylisiiyay markabkii waxa la yiri dhinaca bidixda ah ee kore qaybta kore ayaa maartay gantaalka lagu dhuftay kadibna khasaaro xoog la soo gaaray dib u cararay wuxuu raadsaday dekada uu ku nasto oo maartay ku baxsado marka xuutiyiinta afayaan u hadlay oo Jazeera wareysatay wuxuu sheegay inay tani u muujinayso in xuuti weli isbaaradii ay u taalo duqayn imaada iska dhaafa adikeedii taala kii Mareykanka saas u galeynaa mid kale Israa'iil u socda iska dhaafort asoo meeshan jooga habeen walbana soo weerara aan nagta ku haynaa sheekadaas marka waxay ahayd warbixin runtii cajiib ahayd sheekada marka ugu xiisaha badan barnaamijka idinku haya sheekada marka waxay tahay nimanka xuutiyiinta ahaa nimanka Soomaaliya wax u galeena nimanka Soomaaliya iyagoo isku mid waayadii hore waxa baqli jiray qolooyinkan markii ciidanka Ameerikaanka iyo ciidamadii SNA ay isku dhaceen magaalada Muqdisho ee waxaan ka mid ahaa dadkii magaalada joogay marka waxaan maqli jiray nimankan waxay ku dhigeen xalay
gaari dameero cirka loo taagay ayay nafta ka qaadeen ee wixii bambooyin ahaayeen diyaaradihii xalay duqeeyeen oo maxaa gaari dameerada u geeyey gaariyaasha u geeyey ee waxaa la yidhi waa la siraa nimankoo xerooyinkii ay rabeen inay soo weeraraan ayaa laga wareejinaa marka baalkan gaari dameerka ah ayaa afka kor loogu taagaa macnaha dameerkii ma joogo cid kale ma joogto laakiin gaari dameerka haddii cirka loo taaga laba dhuunuu leeyahay marka waxaa u malaynaysaa lidka diyaaradaha haye marka nimankii marka waa ajarmayaan halkaasay weerarkoodii ku nasinayaan marka garaashadii kale iyo meelihii kale hubka ku kaysanaa waa la xasilinaa maqli jir tiya wallahi igu soo dhacday baan waa yaabay mogtaa tii waagaas aan la yaabay aan maarata hadda igu soo dhacday waxaa leeyahay nimankii xuutiyiinta tabtii oo kale sameeyeen casharkii oo maarata waagaas maraykanka loo dhigay soomaaliya tii oo kale sameeyanaa lagu leeyahay wixii gaari ahaa iyo afka taageen taangiyo eber ah oo la soo aruuriyaa xerooyinka loo dhigay bahaladaasna oo dameeraha bahaladoodiina afkaa loo taagay iyo qoryo duqoobay iyo waxaasiya meesha loo dhigay xerooyinkii waa loo buuxiyey maalmo dhan uu hanjabayo waa idisoo weerararabaa ku hayay waa la ogyaha marka waa idisoo weerararabaa markuu leeyahy sawiruu rabaa inuu qaato macalinka weyn oo satellaydyada iyo waxaas i qaadaan marka nimankii marka meeshiyaa lagu ajaray waxaa la leeyahay amerikaan habeenadan waxa ay duqeynayeen iyo ingiriis ay nagta ku hayeen raadaaraan burburin xeraan burburin ay ku hayeen gaari dameerka bahalkiisa iyo qoryo duqoobay iyo wixii nagta ka geliyeen lagu leeyahay marka waa sheeko cajiiba warbixinta laga qoraan idin akhrinayaa marka wargeyska weyn ee la yiraahdo al-Qudus al-Arabi ee ka soo baxa magaalada London ayaa wuxuu soo xiganayaa joornaal Israa'iili ah wuxuu leeyahay xuutiyiintu way ku guuleysteen inay qarsadaan hubkooda oo markaa Mareykanka laftirkiisu taa hadda wuu aqoonsaday macnaha nimanka inaan waxba laga burburin oo gantaaloodu ay sidii u haystaan weerarka qaadayaan waxaana Mareykanka uu ictiraafay inuu weerarkaasi lagu khiyaameeyay uu ku fashilmay khasaaro lacag fara badanna uga baxday haddaba marka joornaalka la yiraahdo Times of Israel ayaa wuxuu sheegayaa in xuutiyiinta ay ku guuleysteen inay qariyaan hubkooda markaasa waxa la leeyahay ciidamada Mareykanka way ku adkaatay iyo sirdoonadooda inay heli karaan hubkaas iyadoo weli xuutiyiintu ay wadaan hanjabaadaha ay ku hayaan badda cas iyadoo arintaa weli ay taagan tahay مسؤولين مريكنا أيها جورنالك وحي أشيغين إني اعترافين وأي أقونصدين وحي أي سمايين إني تحي مدان وحبك جرلو قيامي مسؤولية مريكنا وحي وركسيين ورقيسك اللي هذا نيويورك تايمز كسو بحودك مريكا waxaana ay sheegeen mas'uuliyiinta Mareykanka inay wajahayaan arin aad u adag oo ku saabsan sidii ay u heli lahaayeen saldhigyada saxda ah xuutiyiinta si ay mar kale u beegsadaan bal ay soo ogaadaan meeshaan mujida adduunyada waa la iskaartay afan aqligaas socdaad marka ninkii Amerikaan ahaa gabgabta meeshaan waxa diyaarad la kiciyay waxa cruise badda laga soo riday waxa la sameeyay gaari dameerka gaarigiisa oo cirka loo taagay qoryo duqa iyo beebayaal iyo taagiyo mar hore ay Sacuudiga iyo duqeeyeen inta la soo jiiday xerooyin la isugu geeyay wixii nagta ka geliyeen hadda marka waxa leeyahay garawsadeen waxay yiraahdeen wallahi waana la khiyaamay meeshana hub badan nooga baabay dhibaatada naga raacday laakiin haddaan ku raad joognaayo waa raadinaynaa meeshii saxda ahayd maxaa la raadinaa galabta asaga nagti laga galiyay markabkiisa maanta saakay markab dagaal ay weerareen way wada shaqadooda haddaba xaalku halkaas uu mara dunida ku xirnow wixii cusub la soco adigoo maaragtay warbixinada aan soo gudbino xaqiiqda ku salaysan dhageysanaya oo ku xirnaanaya waa mahadsantiin dhamaantiin soo qora aragtidiina iyo fakarkiina ku saabsan xaaladda sida ay u socoto kaartada ay sameeyeen xuutigu sidee u aragtaan maxay idin la tahay in mar kale Mareykanku ku guuleysan karo in la helo saldhigyadooda bay idin la tahay haddaba waxyaabaha soo dhan aragtidiina iyo fakarkiina ka soo qora waxa soo kale aan idin sheegayaa inaad barnaamijka like gareysaan inta like gareysana aad bay ugu mahadsan tahay oo share gareysa haday tahay YouTube iyo Facebook
haddaad cusub tahay subscribe saar youtube-ka haddaad cusub tahay facebookana follow garay inta aan mar kale barnaamijkan lamid ah ku kulmayno khiyaaray meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo